الرحمن الرحيم. أصحابي وكسود هذا القناة كي بلدي أوفيشال هدي أي تايمر كبور استفدنا سبسكرايب صار ما أنت وحير بناك أو صباحي حرنا إنا إذا لو داقو فيديو يك كسابسن ما أنت هرتوا إذا شيء كنا يا وحيو كسابسن ته ما أنت مالتا إيديس كأدوكا مركا HIV إيديس كشيء كنا كود ديسمبر ساسي كوبيران تهاي مركو waxaan garwaaqsaday ama isdahay ummadda Soomaaliyeed la wadaag halista uu leeyahay HIV AIDS-ka marka waxaan rabaa inaan wax yar qisooyin ku saabsan HIV AIDS-ka inaan wax idinka soo qaado waa ogtihiin mid kamid ah shacabweynaha ku dhaqan ama taliye kamid ah taliyaasha Soomaalida ayaa maalmahan social media wuxuu ka daaranayay HIV AIDS asiga uu ka qaaday xaaskiisa ee dadku soo gudbinayay marka waxaan rabaa tusaalooyin yar dadka ay la nool yihiin qaabka loo carqaladeeyo dadka qaba HIV AIDS-ka ana wax yar inay kaga taabto taliyaha waa la socotiin taliyo magaalada Boosaaso ama Garowe meel kamid ah taliye Bashiir ilna umaleena magaciisa taliyahaas wuxuu qabay HIV AIDS-ka wuxuu ogaaday kadib markii uu arkay xaaskiisa inay isticmaalayso daawadaasi oo isticmaali jirtay inay qabto HIV AIDS-ka taasi ayaa waxaa sababtay in uu shaki iska qaado asiga kadibna maalmaha kamid wuxuu arkay iyadoo cunaysa daawadii kadib dawagal ku sameeyay markaas wuxuu sameeyay baaritaan kadib adigu soo ogaaday kulay inuu asi cudurkaas qabo cudurkaas kadibna gabadhii wuxuu isku dayay inuu ka hortago oo aysan u gudbinin dadka kale marka saali ajligeeda marka waxaan rabaa inaan idin sheego caqabadaha laga kulmi karo adigoo aadan ogeenin in iska dareento marka taliyaha wuxuu baaritaan ku sameeyay xaaskiisa oo qabtay HIV AIDS-ka kadibna wuxuu isku dayay inuu ka hortago kadib way u suura gashay inuu ka hortago HIV AIDS-ka kadib waxaa dhacday adiga inuu u yeero inuu dhaho qaabka kulay ayadu way dareentay kulay qof is og waayay in qabto cudurkaas si kula kacay u saameysay ay ugu riday ninkeeda marka kadib wuxuu sameeyay qaabka u qabtay maalin wuxuu ku balamiyay meel kamid ah magaalada markaas wuxuu ku dhahay askigii waxaan rabaa aan ku siiyo meherkaaga waa iga furantaa ku dhaarto meesha u diray waxaan marka meherkayga qaabkaas ku siinaa uu ku dhahay marka waxaa dhacday meherkii qaabka ku siiyo wuxuu dhahay meherka ku keenaa gacanta kugu heeyaa kadib waxaa dhacday in oo meherkii si uu si darteed inuu ku qabto rabaa si aan dadka u saameynin aysan ugu gudbin dad kale sababtoo asiga ay ku riday halista cudurka HIV AIDS-ka marka asxaabi warkii aan ku daalinin taliyaha muxuu sameeyay wax wanaag uu sameeyay gabadhii uu iska cafiyay kadibna wuxuu isku dayay in uu asiga dadweynaha inuu kaga digo halista cudurka HIV AIDS-ka uu leeyahay marka saali ajligeeda waxay gelinta wuxuu ka bilaabay magaalada uu ku nool yahay waxaa loo dalacsiiyay xitaa wanaaga uu sameeyay darteeda waxaa loo dalacsiiyay oo taliyo ahaa gaashaanla laga dhigay marka wanaaga uu sameeyay saas waay marka asxaabi marka waxaan rabaa inaan idinkaga digo halista uu leeyahay HIV AIDS-ka waxaa looga hortagi karaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu noo sheegay walaa taqrabu zina innahu kaana faaxishatan wa saa'a sabiila walaa taqrabu zina ilaahay wuxuuna yidhi zinada ka fogaada innahu kaana faaxishatan wadda la mara ayadaa ugu xun zinada marka waxyaabaha halista uu inoo keeni karo aan ka fogaana sida marka adiga aad timajaraad oo kale sakiinta marka tinta lagu xiira oo kale way keeni kartaa qalabyada biraha oo kale hadii lagu isticmaalo maybe qof adiga badanaa horta Soomaalida ma qabto cudurkaas laakiin badanaa waxaa la sheegaa Soomaalida guud ahaan
markii istaasig ahaan lagu sameeyey inay qabaan 11,000 oo qof oo Soomaali ah inay cudurkaas micnaha la il daran tahay dadka daawooyinka isticmaalana waxaa la sheegaa 7,000 meelahaas inay dhan yihiin marka maanta waxaa go'aansaday inaan idinla wadaago inaan micnaha iska jirtaan halista uu leeyahay cudurka HIV/AIDS sababtoo ah maanta ayaa waxay ku asteesan tahay maalinta cudurka HIV/AIDS qisa kala soo qaadanayna asxaabi ku saabsan HIV/AIDS halista uu leeyahay bulshada waxaa dhacday gabar kamid ah gabdhaha Soomaalida magaceeda lama sheegayo laakiin waxay dhahday waxaa la il daranahay HIV/AIDS waxaan leeyahay 3 caruur waxaan ku noolahay magaaladaas dadka meeshaas aan kula noolahay oo badankooda waxay ii arkaan inaan ahay qof micnaha oo takooran oo dadka dhan oo ka liita sababtoo ah waxaan ilaahay cudurka ku riday qofkii waxay dhahday sababta aniga ku ogaaday dhahday micnaha cudurka inaan qabo ninkayga waxay dhahday dhowr sano ka hor iga geeriyooday marka waxay dhahday sababta aan ku ogaaday inaan qabo cudurkan maalmaha kamid anigoo xaamilo ah ama uur aan leeyahay isbitaal aan tagay dhahday isbitaalka kadib marka gabadha aan dhalay ayaa micnaha dhalmadii aan dhalay ah isbitaalka ku ogaaday micnaha markaan dhalay kadib aan ku ogaaday micnaha cunugeeda yarka ee kula dhashaba yani HIV/AIDS marka kadib aan ogaaday dhahday haddana dhowr sano kadib aniga iska baaray dhahday waa laga helay marka kadib marka dadkii meesha ay kula nooleeda waxay kala kulantay cawaaqib xumo ku saabsan midabta koor in la takooro qofkii uusan micnaha yani uusan nolol maalmeedkiisa uusan samaysan karin marka asxaabta sheekadii waxaa idii waday halista cudurka uu leeyahay HIV/AIDS waxaa digaya horta wax walba waxay leeyihiin hortag qaabka looga hortagi karo waa idin sheegay horta marka hore waa inaa horta ilaahay aad ka cabsataan marka xigta horta waa in micnaha markii adiga guur aad galayso mase ama qof aad isla socotaan tusaale ahaan wiil ha noqdo ama gabar ha noqdo labadaba waa ka hadlaya moogtee marka waxaan rabaa wacyigelinta waxay tahay mataqaaniin in horta adiga naftaada marka hore horta ilaahay ugu baqdaa yani inaa ilaahay ka cabsataan marka koowaad وأنا نيهو ورتا آيات القرآن شيء سوما ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا إلى يقول لي هاي كفوا هذا فاحش وحول فاحش فاحشة فاحش وعلها وحول ورتا وحول على الزنا ده وحول مرة وضل مرنا أيضا وحول إلى إله لي هاي مرك كفوا هذا وحرب تسكدب قصة لا جرتو ويل قال يرى جري maalmaha kamid ah wuxuu helay fasax uu helay fasaxii markaas ugu jiray marka wuxuu damcay in uu micnaha magaalo kale u safro magaalo ka soo safray Francisco u safray saalahan Francisco oo u safray Francisco marka u safray wuxuu damcay marka inuu micnaha hotel oo kireysto hotelkii uu kireystay marka receptionist jiro markii hotel markii kireysto meelaha Yurub waxaa jirto inta badan gabdhaha u keena cunooyinka marka gabadha cunto inay u keentay markaas waxay ku dhahday wax dheeri ah maragtaa micnaha waa lagu dhahay wiilkii iska dhalinyaro ahaa laakiin wiil xaaska uu ahaa kulay marka xaaskiisa lama socon marka dambe wuxuu sameeyay haa ku dhahay adi isla markii zinoo ku dhacay wiilkii markuu ku dhacay wuxuu damcay marka wuxuu dib ugu laabtay micnaha asigoona aan micnaha ka fiirsan oo waxba oo isku ogeyn oo dib u laabtay magaaladii oo ka imaado ku laabtay markuu ku laabtay wuxuu sameeyay si toos ah gabadhii uu qabay xitaa mar labaad oo qaadsiiyay cudurka HIV oo ka soo qaaday gabadhii hotelkii oo ka soo qaaday markuu ku soo laabtay magaaladiisa wuxuu damcay marka in adi markii wuxuu sameeyay hadalkii aan ku daalin wuxuu sameeyay markuu ku laabtay gurigiisa gabadhii oo asigoo isbaarin oo cudurkaas qabtaa xitaa niyadiisa aysan soo gelin markuu sidaa oo micnaha ugu sameeyay oo baxay
adig gaariyo qaatay asigoo gaari shiloo gala marka wiilka shil markuu galay isbitaal la geeyay isbitaalka markii la geeyay xaaskiisii uu ku daartay cudurkii asigii wuu qabaa xaaskiisii uure u qaaday wiilkii yar wuu qaaday kulli macnaha way wada qaadeen ma fahamtay cudurkii wuu wada saameeyey marka maxaa dhacday isbitaalka markii la geeyay isbitaalkii markii la baaray waxaa la ogaaday macnaha inuu ninka qabo cudurkaas gabadhiina oo la hadlay wuxuu dhahay ani meeshaas tagay saasaa dhacday arrintaas kadib cudurkaas qabaawo gabadhii waa la baaray ayadana cudurkii uu ku dhacay gabadhii uure lahayd naxdin darteeda meesha ku dhimatay wiilkii darxumo darteeda isbitaalka ugu jiraa wax oo gargaara iyo wax oo xitaa dadkiisii heer dadkiisii ee nacaan macnaha heer dadkiisii ee nacaan oo macnaha cudurkaas gaarsiiyey marka taasna waxay ka mid tahay halista uu leeyahay cudurka HIV/AIDS-ka marka intaasaan rabaa inaan idinla wadaago maanta waa ku mahadsantihiin daawashada mar labaad waa idinkaga mahadcelinayaa daawashada videogan thank you very much waxaan idinka codsanayaa like share